Excellency mudan madaxweyne waxaa sharaf weyn ii ah in aan ka soo qayb galo shirkan qiimaha badan ugu horeyn waxaan salaamayaa si diiran u soo dhaweynayaa martideena sharafta leh uu hogaaminayo agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka Soomaaliyeed mudane Cabdulqaadir Cilmi Cali xubnaha golaha wasiirada ee Jubbaland iyo xildhibaanada sharafta leh gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada agaasima ku-xigeenka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka madaxda kala duwan iyo howlwadeennada hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha laamaheeda kala duwan ee dalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle wuxuu ka mid yahay garoomada ugu waaweyn dalkeena isla markaana adeegiisa ay ku tiirsan yihiin shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dibadiisaba anigoo tixgelinaya gudashada waajibaadka shaqo ee muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan fursadan qiimaha badan waxaan si gaar ah hortaada aan rabaa inaan ka bogaadiyo agaasimaha hay'adda laanteeda Jubbaland mudane Ibrahim Xasan Ismaaciil iyo tiimkiisa heelinka xaqiiqdii waxay muujiyeen dulqaad iyo howlkarnimo shaqo mar walbana u diyaarsan qabashada adeega bulsho ee garoonka taasoo ku dhisan ilaalinta waqtiga qadarinta iyo daryeelka dadka shacabka ah ee aan u adeegno mudane madaxweyne anigoo og in aan marxalado adag ku jirno haddana waxaan rabaa in aan hortaada ka sheego in shaqaalaha garoonka diyaaradaha ay shaqeeyaan muddo ka badan shaqaalaha kale ee dawladda maxaa yeelay waxay shaqada soo galaan 6:00 aroornimo waxayna ka baxaan 5:00 ee galabnimo halka waxay shaqeeyaan taqriiban ku dhawaad 12 saacadood oo maalinkii ay shaqo ku jiraan mar walbana waxay ku taagan yihiin labiskooda shaqo uniform iyo kaararkooda aqoonsiga ah taasoo ka mid ah heerarka lagu qiimeeyo shaqaalaha wanaagsan iyo tayada adeega bulsho ee garoonka diyaaradaha mudane madaxweyne mas'uuliyadaha shaqo ee ay wadaagaan maamulka garoonka hay'adaha amniga iyo immigrationku waa mas'uuliyad shaqo oo isku xiran midna uusan ka maarmin midda kale sidaa daraaddeed adeega bulsho ee garoonka diyaaradaha waxaa halbowle u ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka Soomaaliyeed sababtoo ah qof walba oo dhoofaya ama ka soo dega garoonka wuxuu maraa nidaamka immigrationka waxaana la baaraa ama la hubiyaa sharcigiisa ama shuruudaha kale ee waafaqsan hanaanka dhoofidda garoonka taasoo ku dhisan dhowrista xuquuqda gaarka ah ee muwaadinku leeyahay iyo sidoo kale midda qofka ajnabiga ah hanaanka baarista amni hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxay ku soo kordhisay adeega garoonka qalab baaris amni oo casri ah loo yaqaano fingerprint cross margin machine waa qalabka qofka dhoofaya ama dalka dibadiisa aaday diyaaradaha systemka immigrationka ee faraha la saaro kaasoo lagu baaro faraha qofka dhoofaya si loo hubiyo wax walba oo amniga khatar gelin kara taasoo caddaynaysa xaqiiqdii in hay'addu ay hormuud u tahay 1 ilaalinta sharciga 2 adkeynta amniga dalka 3 dhowrista xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ogolaanshaha dalku galka qof walba oo dalka ku soo gala passport ajnabi ah waa la anshuuraa waxaa la siiyaa entry ama exit visa haddii uu rabo inuu dalka ka sii shaqeeyana waxaa la siiyaa ogolaansho shaqo work permit
ayaa la siiyaa taasna waxay muujinaysaa in hay-addu ay hormuud u tahay hirgelinta nidaamka kow dowlad wanaagga labo dabagalka iyo isla xisaabtanka saddex dakhli abuurka dalka mudan madaxweyne ugu dambeyn tala soo jeedin waxaan soo jeedinayaa kow in la kordhiyo tababarada shaqaalaha heer dowlad goboleed iyo heer qaranba labo in la ballaariyo ka qaybgalka shirarka siminaarada gudaha dalka iyo dibaddiisaba si shaqaalaha hay-adda iyo kuwa maamulka garoonkaba loo horumariyo khibradooda shaqo iyo xirfadaha shaqo ee gaarka ah mudan madaxweyne ugu dambeyn martida sharafta leh waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Kismaayo hooygii nabadda iyo dalxiiska dhirtii iyo dhulkii udgoonaa halka webiga iyo baddu iskaga darmaan kalluun fresh ah iyo xalwo macaan aad u mahadsantihiin